halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban FM-da magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. kulan wacan wanaagsan dhageystayaal idlahaantiinba meelbo aad joogtaan waa talaada 14 bisha 8 ee sanadka 2018 arrimahan barnaamijka duhurnimada ku heynana waxa kamid ah madaxweynaha Turkiga oo sheegay in ay qaadi doonaan alaabaha elektaroonikada ee dalkaasi uga yimaado wadanka Mareykanka baarlamaanka Puntland oo la filayo inuu ku dhawaaqo nooca doorasho ee maamulkaasi yeelan doona sanadka dambe. dabcan haddaan xisbiyadii laga soo shaqeyn oo aysan baahin oo taabagelin waxay noqonaysaa siday tii hore u dhacday inay u dhacdo annaga wax ka bedelan oo hayna ka guud ahaan ma jirto. dalka Uganda hal qof ayaa la dilay kuwa kalena xabsiga ayaa loo taxaabay kadib markii uu qalalaas ka dhashay doorasho ku celisa oo dhawaan ka dhici doonta waqooyiga wadankaasi. waxa kale oo aan idin haynaa 2 days ago when there was heavy fighting in Ghazni and people were killed, the city was put on fire. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka wadanka Afghanistan oo sheegtay in dowladda dalkaasi ay ku guuldareysatay inay cagta mariso kooxda Taliban iyo dabcan ciyaarihii. barnaamijku waxa isku soo dubaraday Ciise Xaji waxaan marka hore ku bilaabaynaa warkii dunida iyo Cabdiqaadir Yuusuf. mahadsanid Bashiir. madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu cunaqabatayn saaray badeecadaha biraha ee Turkiga waxa uu Erdogan sheegayaa in Turkiga ay khasab ku tahay in wadanka gudihiisa laga isticmaalo agabkaasi. hadalkan ayaa imaanaya kadib markii Washington ay birta iyo nuxaasta ee Turkiga ay ku kordhisay canshuurta tallaabadaas oo horseeday inay hoos u dhac ku yimaado lacagta Turkiga ee liraha. waxa uu sidoo kale Mr. Erdogan soo jeediyay inuu tallaabo arsi sameyn doono oo wadankiisa joojin doono iibsashada telefoonada gacanta ee iPhone-ka loo yaqaan una ku bedeli doono telefoonada Samsung. waxa uu yiri Turkiga waxay gaari doontaa isku filnaansho. dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini waxaan gudaha dalkeena ku samaysan doonaa alaab kasta oo aan ka soo dhoofsano dibadda ee ay nooga baxdo lacagta qalaad dalkeenana waxa uu noqon doonaa kan dhoofiya alaabahaasi. Amerika'nın elektronik ürünlerine hadda laga bilaabo waxaan qaadacaynaa alaabta elektarooniga ee nooga timaada Mareykanka haddii ay leeyihiin telefoonada iPhones-ka dhanka kale waxaa jira Samsung. onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Turkiga ayaa maanta ku kulmaya magaalada Ankara ee Turkiga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda Suuriya gaar ahaan gobolka Idlib oo ay ka taagan yihiin dhibaatooyin. waxaa sidoo kale la filayaa in wasiirada ay ka wada hadlaan lacagta Turkiga ee hoos u sii dhacayso. dagaalyahanada Taliban ayaa qabsaday saldhig military oo ku yaala waqooyiga Afghanistan kadib 2 maalmood oo dagaal ka socday halkaasi. ugu yaraan 17 askari ayaa lagu dilay saldhigga. saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in 50 askari oo kalena ay isku dhiibeen dagaalyahanada Taliban. waxaa sidoo kale gacanta ay ku dhigeen taangiyo iyo hub kale oo fara badan. madaxweynaha Venezuela ayaa sheegay inuu isbedel weyn ku sameyn doono dhanka shidaalka ee dalkiisa. Nicolas Maduro ayaa sidoo kale sheegay in mustaqbalka uu wax ka bedeli doono kaararka aqoonsiga ee dawladdu bixiso. ugu dambeyntiina booliiska Britain ayaa weerar argagixiso ku tilmaamay dhacdo oo nin gaari ku jiirsiiyay bar control oo u dhow guryaha baarlamaanka. ninka ayaa gaariga jiirsiiyay koox dad ah oo 2 kamid ah haatan waxa lagu dabiibayaa isbitaalka balse ninka dhibaatada geystay ayaa la xiray. warkiina waa naga inta Bashiir aan dib ugu celiyo. Cabdiqaadir aad buu mahadsan dhageystayaal iminka u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. waxaa dhageystayaal raleehadan xilli uu si xumaanay xiisada diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale u dhaxaysa dalalka Mareykanka iyo Turkiga ayaa madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu sheegay inay qaadi doonaan alaabaha elektaroonikada ee wadankaasi uga yimaada wadanka Mareykanka. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut ayaa magaalada Ankara waxa uu ku wada hadal kula leeyahay dhigiisa wadanka Ruushka Sergey Lavrov kuwaasi oo ka wada hadlaya xaaladda ka sii daraysa gobolka Idlib ee wadanka Suuriya iyo hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta wadanka Turkiga. wararka BBC-da umurtaasi ka qortayna waxa inoo haya Axmed Cabdinuur. madaxweynuhu waxa uu sheegay in Turkigu ay qaadici doonaan waxyaabaha Mareykanku sameeyo ee qalabka elektarooniga waxaana uu yiri haddii ay leeyihiin iPhone dhinaca kale waxay leeyihiin Samsung
dalkeennu waxa uu leeyahay shariikadaha Venus iyo Vestel ayuu sheegay. Madaxweynuhu waxa uu ku baaqay in la kordhiyo wax soo saarka iyo wax dhoofinta Turkiga si wax looga qabto dhibaatooyinka dhaqaalaha. Waxa uu ka digay iibsiga lacagaha qalaad oo uu sheegay inay horseedi doonto burbur. Waxaad tihiin Turki, waa inaad ku dhaqantiin lacagta Turkiga ee lira, ayuu yiri. Khudbad uu hore u jeediyay waxa uu ku celiyay in dhaqaalaha Turkiga la soo weeraray, waxaana uu Mareykanka ku eedeeyay inuu wadankiisa dhabarka ka wareemay. Hadaladani waa caradii ugu dambeysay ee ka dhalatay kadib markii uu Mareykanku Turkiga ku soo rogay cunaqabateyn iyo canshuuro toddobaadkii hore, taas oo kicisay qalalaasaha dhinaca maaliyadda ee dalkaas ka taagan. Madaxweynuhu waxa uu yiri Turkigu waa inuusan isu dhiibin cadowgiisa. Lacagta liirada way soo yara kabatay kadib maalmo ay aad hoos ugu dhacday, laakiin hadallada noocana waxay sii horin karaan khilaafka xagga diblomaasiyadda. Turkiguna waxay sugayaan jawaabta ka iman doonta madaxweynaha Mareykanka oo aan jeclayn in laga caraysiiyo. Aaron David Miller oo ah agaasimaha barnaamijka bariga dhexe ee xarunta Woodrow Wilson, horeyna u ahaan jiray la taliyaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, waxa uu BBC-da u sheegay inay adkaan doonto xallinta khilaafkan. Each side will eventually recognize that the risks and costs of the public. Dhinac kasta waxa ugu dambeyntii garowsan doonaa khatarta iyo khasaaraha uu leeyahay muranka shacabsan ee salka ku haya danaha gaarka ah ee labada dal, kaasoo gaarsiiyay xaaladda meel ay tahay in la xakameeyo. Waxaan filayaa intaasi ay waqti qaadan doonto maadaama dhinac kasta uu u baahan yahay inuu shacabkiisa qanciyo ka hor inta aan xal la gaarin. Waxay la tahay inay jiri doonto natiijo abuuraysa in la isu gurmado oo xaaladda la dejiyo. hase yeeshee waxaan filayaa in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uu wajahayo maalmo adag. But I think the US-Turkish relationship is in for very rough days ahead. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu waxa uu maanta wadahadal la yeelanayaa dhiggiisa wadanka Ruushka Sergey Lavrov oo ay ka wada xaajoonayaan xaaladda gobolka dalka Suuriya ee Idlib ee sii xumaanaysa iyo dhibaatada dhaqaale ee Turkiga ka taagan oo iyadu sidoo kale saameyn ku yeelatay suuqyada maaliyadda ee wadamada soo koraya. Lacagta wadanka India ee rubi waxay gaartay meeshii ugu hooseysay taariikhda marka la barbar dhigo doolarka Mareykanka, iyadoo laga cabsanayo in lacagta liiraha ee Turkiga dhibaato weyn ku dhacdo. Axmed Cabdinuur aad buu mahadsan yahay. Qodobkaasi dhageystayaal badan ayaa dhanka Facebook kaga soo raay dhiibtay. Waxaa kamid ah Liibaan Maxamed Sharwac oo ku nool wadanka Canada. Waxa uu yiri hadalka ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga runtii waa mid wanaagsan oo soo dhaweyn iyo bogaadin mudan buu yiri. Waxaan aaminsanahay dagaalka ganacsi ee ka dhex qorxay buu yiri Turkiga Mareykanka inuu saameyn weyn yeelan doono. Waxaa loo baahan yahay Turkiga inuu isku filnaansho sameeyo una ku gudbo yiri caqabadaha imika soo wajahaya. Baxsan barqad oo idana magaalada Buurama ka soo qortay waxay tiri waxba ma soo kordhinayso talaabada uu rabo inuu Turkiga ku joojiyo alaabaha uga yimaada wadanka Mareykanka, waxaana ay sii horinaysaa bay tiri khilaafka labada dhinac oo haatanba markaasi loo baahan yahay bay tiri in wadahadal lagu dhameeyo. waxaa dhageystayaal markana baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka maamulkaasi si ay bal uga warbixiyaan hawshii loo igmaday ee ahayd in Puntland doorashada xigta ay ka dhacdo ama ay noqoto doorasho qof iyo cod ah. balse imika wararkeena ka heleno Puntland waxay sheegayaan in baarlamaanka ay go'aamiyeen nooca doorasho markaasi ka dhici doonta Puntland sanadka nagu soo aadan ee 2019. haddaba wariye Axmed Cawil ayaa arintan ka wareystay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Cabdiraxmaan Diriye Sabatar. waa maadsantahay Axmed. doorashada hadda waqtiga ka haray iyo waqtiga hadda xaalku sida uu yahay wax isla maaha. shaqad waqti hore u baahnayd in la qabto ayaan qabsoomin, marka maxaa inoo haray teeram inooma harin, marka shaqada loo baahan yahay in la qabto teeram kare wax isla maaha. marka maqaabka hore ku noqonaysaa waa tii la lahaa awal waxa loo guuraya arrimaha xisbiyada badan iyo lagama gaari karo miya. dabcan haddaan xisbiyadii laga soo shaqayn oo aysan baahin oo taabagelin waxay noqonaysaa sidii tii hore u dhacday inay u dhacdo. annaga wax ka bedelan aanu haynaa ka guud ahaan ma jirto. guuldarrada maxaa idin keenay islaada? guuldarra ma jirto, wax waa la qabtay laakiin sidii la rabay uma aysan qabsoomin. mar haddii sidii la rabay aysan u qabsoominna waxa lagu khasban yahay doorka hore in lagu noqdo la qabto. waa garta marka baarlamaanka khudbad baad ka jeediseen meelaha aad taagteenna waxaa ka mid ahaa guddiga doorashooyinka ee Soomaaliya. waa maxay khilaafaadka idin ka dhex jira aad u sheegteen? guddiga khilaafaadka naga dhex jira waxa weeye ayaga iyo annagu isku mandate baanu nahay, marka wixii dastuurka ahaa oo kala qeexi lahaa ma kala qeexnaa. marka
marka xafiiska guddigu ay furanayaan oo ay rabaan waa xafiis barbar marsan ka dastuur ahaan Puntland iyo ka maamul ahaan Puntland iyo ka guddi ahaan anagu doorka aanu leenahay marka waanu sharaxnay baarlamaankaanu hordhignay baarlamaanka iyaga laga rabaa inay ma la oran karaa idinka sadbursi doonaya oo sidaas ma waaba dastuuriga waaba sharaxlay waxa ficlaan leh adigu qodobada la isku hayeera akhriyay marka sadbursi ma jiree annaga doonayna war wixii hal la iswaafajiyo sharcidaha lagu wada shaqeeyo ayana intay ka cararayaan diidayn waa inta arrimaha aad ka hadlaysay waxa kamid ah xafiiska laga furay Puntland marka maxaad u diidaysaan xafiis la furo maadaama dawladda dhexe ay wadanka dhan baa ay waxa ka horeysa xafiiska la furayo in systemkii iyo sharciyadii lagu wada shaqeyn lahaa horta ay tahay laba ka horeysa inta la isku baafsay inta sharciyadii lagu wada shaqeyn lahaa aan sunnimaadno oo hal laga wada shaqeeyo isku mandate baanu nahay sharciga hadda akhrin la waxa sharcigoodu siinaya inta anaga sharciga Puntland uu nasiinay marka labada xafiis mid baa xirmay mid baa shaqeyn waa inta iyo in la wada shaqeeyo wax la isku weeyay laga wada shaqeeyo inta kasbuuxa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland oo warmay wariye Axmed Cawiil maadaama imika baarlamaanka Puntland ay go'aamiyeen in doorashada markaasi dhici doonto sanadka 2019 ay noqoto mid markaasi qaab qabiil lagu saleeyo halka dhageystayaal nagala socotaana waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجا dhageystayaal markana wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Afghanistan waxay sheegtay in maleeshiyad ka tirsan Taliban ay la wareegeen saldhig militari oo ku yaala waqooyiga gobolka Faryab ee dalkaasi kadib laba maalin oo dagaal culus oo halkaas ka socday ugu yaraan 17 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa lagu dilay weerarka halka 15 kalena lagu dhaawacay gudoomiyaha gobolka ay wax ka dhaceen Naqibullah Fayq waxa uu sheegay in konton askari iyo hubkooda ay isu dhibeen kooxda Taliban waxaana inta ku daray in askartaasi ay gurmad dirsadeen balse aysan jirin cid markaasi u soo gurmatay xilbaan ka tirsan baarlamaanka Afghanistan sidoo kalena gudoomiyaha ahna markaasi guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka waddankaasi Fawziya Kofi waxay sheegtay in dowladda dalkaasi markaasi aysan ka goonayn inay cagta mariso kooxda Taliban ee ka dagaalanta waddankaasi The ability of the leadership of the security forces is awoodda hoggaan ee xoogagga ammaanka iyo weliba tan dowladda midnimada qaran ayaa ah mid ay su'aal ka taagan tahay sababtoo ah 2 maalmood ka hor ayuu bilowday dagaalka culus ee Qanazni dad ayaana ku dhintay shacabka u dabaaldegaya maalinta dhalinyarada ayaa waxa laga gubay magaalada marka su'aasha la isweydiinaya ayaa ah maxaan mudnaanta siinaynaa xilligan adag ee Afghanistan wajahayso question is what is our priority at this critical moment in Afghanistan isla haweeneydaasi aad maqlaysaan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Afghanistan oo lagu magacaabo Fawzi oo ay si hadashay waxay tiri ciidamada dalkaasi wali waxay la daaladhacayaan weerarada baan ee kaga imaanaya kooxda Taliban I think in the past few years waxay ila tahay in dhowrkii sano ee la soo dhaafay gaar ahaan 2 sano ee u dambeysay qasaaro badan la kulmeen ciidamadeena dabcan maalin kasta waxaana soo gaara weerar ka dhan ah booliska iyo xarumaha militariga dilal iyo dagaalaba waxay ila tahay in ciidankeena aanu u diyaarsanayn dagaal noocan ah maadaama Mareykanka iyo dalalka Yurub ay gali jireen dagaaladaasi ka hor sanadkii 2014 kadib sanadkii 2014 markaasi oo xoogageena ammaanka si madax bannaan ay u bilaabeen ayaa Taliban waxay naga qabsatay goobo badan independently started fighting since then we lost many places to the Taliban markana waddanka Uganda ayaa waxa la sheegay in hal qof la dilay in ka badan 30 kalena xabsiga loo taxaabay kadib markii uu qalalaasa ka dhashay doorasho ku celisay oo la filayo inay ka dhacdo waddankaasi gaar ahaan waqooyiga waddanka Uganda booliska waxay sheegeen in taageerayaasha mucaaradka ay weerareen kolaya baabuur ah oo la socday madaxweynaha waddankaasi Yoweri Kaguta Museveni xilli uu ka ambabaxayay goob uu kaga qayb galay oo laga doorasho wariyaha BBC-da Catherine Biaruhanga ayaa warbixintan halkaasi naga soo dirtay sawirka nin dhalinyaro oo dhiig badan dharkiisa ka muuqda ayaa si degdeg ah ugu faafay baraha ay bulshada ku wada xiriirtay ee dalka Uganda waxa uu ahaa darabalka mid ka mid ah hogaamiyaasha siyaasadeed ee ugu caansan dalkaasi oo lagu magacaabo Robert Kyagulanyi balse ku caan baxay magaca Bobi Wine isla markaana fanaan caan ah waxa la dilay xilli uu soo idlaaday oo loo doorasho xasaasi oo ka dhacay magaalada Arua taasoo ay Mr Kyagulanyi iyo madaxweyne Yoweri Museveni u kala taageerayeen laba musharax oo iska soo horjeeda
booliska ayaa sheegaya in mid ka mid ah gawaarida ilaalada madaxweynaha la dhagaxiyey maalintii Isniinta kadib markii ay ka soo baxeen isu soo bax siyaasadeed arrintaasi oo horseeday in ciidamada ammaanka ay soo dhexgalaan uuna sidaa ku dhintay hal qof hase haatee shaki ayaa laga muujiyey qaabkay booliska dhacdadaasi ugu warameen sababtoo ah kolonyada madaxweyne Museveni ayaa ah mid aad loo ilaaliyo taageerayaasha Bobi Wine waxay sheegayaan in siyaasigaasi la bartilmaameedsanayay tiro dad ayaa xabsiga loo taxaabay oo laba wariye ay ka mid yihiin booliska ayaa sidoo kale ku raad jooga Bobi Wine oo ka baxsaday goobtay wax ka dhaceen doorashada ku celiska deegaankaasi ayaa la qaban doonaa maalinta Arbacada ah xildhibaanka xilkaasi hayayna Ibrahim Abriga ayaa waxaa la dilay bishii 6 ee sanadkan dalkaas oo ilaa hadda aan la ogeyn cidda ka dambeysay ciise aad buu mahadsan yahay waxa uu inala socodsiinaya warbixinta wariyaha BBC-da Catherine Biyarohanga dhageystayaal halka weli aad nagala socotaana waa BBC soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com markani wadanka Kenya wali waxa ka socda howlgallo lagu soo xiriirinayo saraakiil hadda dawladda ka tirsan oo ku hore oo markaas lagu eedeeyay falal musuqmaasuq waxa ugu dambeeyay shalay markii maxkamadda la soo taagay madaxa guddiga qaran ee dhulka Maxamed Usazuri iyo saraakiil kale oo ku jira gudoomiyaha shirkadda tareenada Kenya kuwaas oo lagu eedeeyay inay lunsadeen lacag gaaraysa malaayiin dollar oo ay ka lunsadeen dawladda howlgalkan ugu dambeeyay waxa hormuudka ah dacwadoogaha Kenya Nuruddin Haji madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in howlgalkan lagu la dagaalamayo musuqa uu saaxiibo badan ku waayay haddaba xaaladan taagan si aanu u falanqeynayaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo u warramay Ciise Haji waxaa muddo runtii madaxweynaha waxaa ka go'an in uu xiro dad badan oo musuq lagu eedeynayo dhul badan oo macnaha la isdoomariyay iyo maartii yani telefon badan oo macnaha la samaystay dad badan oo wadanka laga yaqaan oo xiriir safarada ka haya ayaa imanka jeelsi la geliyay ayadoo lagu eedeynayo in waxyaabo fara badan ay isdoomariyeen musuq fara badan ay keeneen Dr. Cabdiwahaab tan iyo bishii May ay howlgaladan socdeen oo dad maxkamad la soo taagayay balse weli xukun ma dhicin taas macnaheedu waa maxay marka horta musuqmaasuq dalkan aad u ragaadiyay waxaa moodaa dalkan uu sunacado kala lahayn adugu weyn dadku wali waxa musuqmaasuq weeyaan marka waxaa moodaa runtii musuqmaasuq in meel kasta uu galay maxkamadii uu galay baarlamaankii uu galay dawladii uu galay society uu galay taana qof kasta maanta qiyaana waxaa moodaa in musuqmaasuq sababi moodaa maartay marka maxkamadaha inta badan waxa weeyaan ayaga lagu eedeeyaa inay qaybkii musuqmaasuq maartay kiisaskii musuqmaasuq la horkeenay muddo fara badan ay ku qaadanayaan qofka ay maxkamadayaan oo qof marka xukun ay ku ridaan waxaad arkaysaa qofka marka hadda la soo xiro hadana yani beel siinayo oo bom badanku wadan lagu soo saarayo kadib markuu isku dayay maartay yani faragelin uu ku soo maartay maxkamadda maartay si marka kiiskaas uu baxsado madaxweynuhu markuu leeyahay saaxiibo badan ayaan lumiyay tan iyo markay bilaabatay dagaalka ka dhanaha musuqa maxaa la filin karaa oo soo socda oo madaxweynuhu talaabooyin intee laga qaadi karaa afarta sano ugu horeysay wax talaabo qaadi mayna jirin maxaa yeelay in dib loo doorto rabay hatta laakiin afartan sano ugu dambaysa wuxuu rabaa inuu ka taga magac Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka ayuu kaasi ahaa uu warramay Ciise Haji markana haddii aan si kooban u eegno ciyaarihii wariyaanka kooxda Liverpool Mohamed Salah ayaa loo gudbiyay booliska wadanka Ingiriiska kadib markii uu soo baxay muuqaal muujinaya isagoo kaxaynaya baabuur sidoo kalena isticmaalaya telefoonkiisa gacanta booliska Britain ayaa xaqiijiyay muuqaalkaasi loo gudbiyay qaybta booliska ee qaabilsan arrimahaasi muuqaalkan oo wariyaha qabsaday baraha bulshada ayaa muujinaya Mohamed Salah oo isticmaalaya telefoonkiisa gacanta xilli uu watay baabuurkiisa taasi oo leeyahay waxay xadgudub ku tahay sharciga wadankaas Ingiriiska Mo Salah uu dheelaa wadanka Masar oo dhashay wadanka Masar oo dheelay kooxda Liverpool ayaa kooxdaasi xilli ciyaareedkii tagay waxa uu dhaliyay 44 gool waxa kaga dhigaystayaal markana waxaan idinku duwayaa baafintii iyo weliba soo kaleeta dadka warkooda la doonayo baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Samiira Cabdulaahi Jaamac Samiira
mahadsanid caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Safiya Cabdulaahi Bare oo joogta Baardheere. waxa ay baafinaysaa Raxma Cabdulaahi Bare. waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2013. haddaba haddii ayna maqlayso Raxma Cabdulaahi Bare amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Safiya Cabdulaahi Bare iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere. Bare Aadan Xuseen oo joogo Garbahaare waxa uu baafinayaa Aadan Cabdi Aadam. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Suudaan 2012. haddaba haddii uu maqlayo Aadam amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Bare Aadan Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbahaare. Yoonis Cabdulaahi Cabdi oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Cali Cabdulaahi Cabdi. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Faransiiska sanadii 2009. haddaba haddii uu maqlayo Cali Cabdulaahi Cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Yoonis Cabdulaahi Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2561444341. Mahdi Siraad Jaamac oo jooga Garbahaare waxa uu baafinayaa Cabdiweli Cusmaan Jaamac. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2014. haddaba haddii uu maqlayo Cabdiweli ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Mahdi Siraad iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbahaare. Odan Bashiir Nuur oo joogta Garbahaare waxa ay baafinaysaa Cabdi Xakiim Bashiir Nuur. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Hindiya sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Cabdi Xakiim Bashiir Nuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Odan Bashiir Nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbahaare amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2525433211. Zainab Cabdalla Cusmaan oo joogta Garbahaare waxay baafinaysaa Yaxya Cabdi Cabdalla. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Norway 2012. haddaba haddii uu maqlayo Yaxya amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Zainab iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbahaare. xasan jaamac warsame oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Cabdulaahi Sheekh Axmed. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Sweden sanadii 1993. haddaba haddii uu maqlayo Cabdulaahi Sheekh Axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xasan jaamac warsame iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2525769376. Xaliimo Mursal Cali oo joogto Shangalow waxay baafinaysaa Roonow Mursal Cali. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Kenya 2011. haddaba haddii uu maqlayo Roonow Mursal ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaliimo Mursal iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Shangalow. Bare Cabdi Gamacdiid oo joogta Baardheere waxa ay baafinaysaa Cumar Axmed Gamacdiid. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2013. haddaba haddii uu maqlayo Cumar Axmed Gamacdiid amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Bare Cabdi Gamacdiid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 252558559391. Cabdi Fataax Axmed Bulxan oo jooga Garbahaare waxa uu baafinayaa Cabdikariim Axmed Bulxan. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mareykanka 2014. haddaba haddii uu maqlayo Cabdikariim Axmed ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdi Fataax Axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbahaare. Guuleed Mahad Aadan oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Cali Mahad Aadan. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Malawi sanadii 2015. haddaba haddii uu maqlayo Cali Mahad Aadan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Guuleed Mahad Aadan iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere amaba telefoonka nambarkiisu yahay 2525999313. Hawiye Saalax Cabdi oo joogta Garbahaare waxay baafinaysaa Saalax Cabdi. waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan Itoobiya 2015. haddaba haddii uu maqlayo Saalax Cabdi ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Hawiye Saalax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garbahaare. Cabdinuur Samatar oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Xaashi Nuur Samatar. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Tanzania sanadii 2014. haddaba haddii uu maqlayo Xaashi Nuur Samatar ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Cabdinuur Samatar iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baardheere.
xaawo cabdi xaaji oo joogto Garbaharey waxay baafinaysaa Nuur Axmed Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2015 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Axmed Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xaawo cabdi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. Shucayb Shira Aadan oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Xasan Shira Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Mozambique sanadii 2015 haddaba haddii uu maqlayo Xasan Shira Aadan ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Shucayb Shira Aadan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 Xaliimo Muuse Axmed oo joogto Tuulo Beerwaaq waxay baafinaysaa Cabdinaasir Xaashi Aadan waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Liibiya 2016 haddaba haddii uu maqlayo Cabdinaasir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Xaliimo Muuse iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Beerwaaq. cali geele cilmi oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Deeriye Axmed Dalaal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Norway sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Deeriye Axmed Dalaal ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cali geele cilmi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. xasan xuseen cilmi oo jooga Garbaharey waxa uu baafinayaa Saleebaan xasan xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan Mozambique 2014 haddaba haddii uu maqlayo Saleebaan xasan xuseen ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo xasan xuseen cilmi iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. Jamaal Cabdulaahi Cismaan oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Xasan Cismaan Abshir waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Finland sanadii 2010 haddaba haddii uu maqlayo Xasan Cismaan Abshir ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Jamaal Cabdulaahi Cismaan iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 Barni Maxamed Faarax oo joogto Garbaharey waxay baafinaysaa Cabdirasaaq Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2012 haddaba haddii ay maqlayso Barni ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdirasaaq Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. Khadiija Bilow Maxamed oo joogta Baardheere waxa ay baafinaysaa Maryan Bilow Maxamed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Uganda sanadii 2013 haddaba haddii ay maqlayso Maryan Bilow Maxamed ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Khadiija Bilow Maxamed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere. nimco Diiriye Guuleed oo joogto Garbaharey waxay baafinaysaa Asiili Cabdinaasir Diiriye waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Mozambique 2016 haddaba haddii ay maqlayso Asiili ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo nimco Diiriye iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garbaharey. Cismaan Maxamed Guhaad oo jooga Baardheere waxa uu baafinayaa Khaliif Maxamed Guhaad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya sanadii 2014 haddaba haddii uu maqlayo Khaliif Maxamed Guhaad ama ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cismaan Maxamed Guhaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Baardheere ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 hooyo wali cali mataan oo joogto magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa wiilkeeda Jaabir Ibraahim Khayre oo 8 jir ah waxa ugu wardambeysay 25 bishii labaad ee sanadkan haddaba haddii ay jirto cid aragtay Jaabir Ibraahim Khayre fadlan waxa si naxariis loo codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama telefoonka hooyo wali cali mataan 2526 hooyo Aamina Xasan Xuseen oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay baafinaysaa wiilkeeda aadan siido da'diisu waa 8 jir waxa ugu wardambeysay bishii labaad ee sanadkan haddaba cid alaaliyo cidii aragtaa waxaa si naxariis leh looga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xafiiska baafinta bisha cas ee magaalada Muqdisho ama telefoonka hooyo Aamina Xasan Xuseen 2526 aan ku celiyo 2526 Axmed Cumar Cabdiraxiin oo joogo Tubaako waxa uu baafinayaa Xaawo Cabdiraxiin Axmed waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Yemen 2015 haddaba haddii ay maqlayso Xaawo Cabdiraxiin ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Axmed Cumar iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Tubaako.
habboon axmed cali oo joogta baardheere waxa ay baafinaysaa mustaf axmed cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka liibiya sanadii 2015 haddaba haddii uuna maqlayo mustaf axmed cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo habboon axmed cali iyadoo wax walaa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baardheere baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay cibaado maxamed oo joogto qardho waxay baafinaysaa Saciid Maxamed Ciise haddaba haddii uu maqlay Saciid ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo cibaado Maxamed Ciise iyadoo wax wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay qardho baafintina maanta waa naga intaas samir caashaad baa mahadsan dhageystayaal intaan waxnu ku soo gabagabeynaa idaacaddii duhurnimo waxaa soo saaray ciise xaaji waxaan idinla socodsiinaya anigoo bashiir maxamed caataha sidoo kale dhanka farsamada waaweynay tan iyo shanta galabnimo hadduu ay baydmo intayna dib hawada kulmi doona dhegeystayaal wararkaasi warar kale waxaad dib uga daalacan kartaan barteena internetka ku leenahay bbcsomali.com halkaasi waad ka heli kartaan wararkii ugu dambeeyay tan iyo shanta galabnimo sidaas iyo nabadgelyo